ضروري وأدو مهم وياي محمد فارح عبدي حقيها arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay hotelka Rays magaalada Boorama ayaa barbilaba waxa uu kulan warbaahineedkiisa kaga hadlay oo baaq u diray bulshada kala duwan ee ku kala sugan gobolada Awdal Saaxil iyo Murudijeex isagoo bulshadaas ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada kooban ay socoto kaar bixinta codaynta sidoo ognahay waxa 31 bisha Maarch bilaabmaya kaar qaybintii fiiskiisii koowaad waxa uu ka bilaabmayaan gobolada Awdal iyo Murudijeex iyo Togdheer waxaan halkan baaq dheer uga direynaa dhammaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan saddexda gobol ee uu ka bilaabmay 31 bisha inay u diyaar garoobaan sida kaarka u qaadan lahaayeen waayo waqtiga kooban darteed saddex cisho ayaa marka hore goobile iska register gareey laga qaadanayaa todobada cisho dambana waxa laga qaadanayaa degmooyinka ay ku noqonayaan goobo cayimana qof kasta culays iyo dhibaato ku noqonaysa hadii aanu saddexda cisho ka faa'iideysanin waa daruuri oo aad muhiim u yahay in kaarka la qaato sababtoo ah waxa ku xidhan mustaqbalka musharaxiinta aynu baahanay inay isbedel keenaan qof kasta oo muwaadin ah oo ku nool gobolada qof kasta oo la jecel ka qaba qarankan qof kasta oo doonaya inay saameyn isbedel dhacdo waxa ku waajiba inuu kaarka qaato si uu u rumeeyo himiladiisa oo doonayo inuu dalkan iyo shuruucdiisa wax kaga bedelo laba la isku heli maayo oo inuu qofku marka horena systemkii wax lagu bedelayay wadadii loo mariyo uu dhayeersado iyo inuu marka dambe wixii u soo baxay ilaahay meesha keeno uu ka cataabo waxaan u baahanahay si qaranka sixitaankiisa looga wada shaqeeyo in qof kastoo qaangaaro marka hore isdiiwaangeliyo kaarkiisa qaato sababtoo ah isagay gacantiisa ku jirtaa inuu keeno qof nadiif ah oo karti leh oo aqoon leh oo daacada oo ka shaqeeya mustaqbalkiisa iyo ka qarankiisa haddayna intaas samaynin halkii uun taagnaanayna waxa runtii u baahan iyaduna in la cadeeyo qofku haddii uu sugo in la qaado qofku haddii uu yiraahdo hebel baa sharxan oo sugayaa qofku haddii cid wax kaga xidhan yihiin waxba lama xaqiijin karo waxna lama gaari karo waxaan u baahanahay cid fog ee u baahan la qaado waa daruuri waa la qaadaya cidda aan fogeyn meesha area-dii u dhow ama magaalooyinkii jooga ama agtiisaba la keenay inaanu cidna tala ka sugin arrinkaas inuu kaarkiisa doonto inuu u fududeeyo qofkiisa musharaxa inuu ka furto intii uu hawl ka furan karaba inaanu jaad ku xidhin inaanu ku xidhin iqaad inaanu ku xidhin qadaysi laakiin muwaadinimo oo dhaqaaqo sidoo kale xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani Maxamed Farax Cabdi ayaa bulshada waxa uu soo jeediyay inay ka taxadaraan cudurka halista badan ee coronavirus-ka ee xilligan sida weyn u soo labakacleeyay isagoo bulshada ugu baaqay inay raacaan tilmaamaha ay soo jeedisay wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxa kale halkan iyadana ka dirayaa baaqa maadaama xilli koonfur lagu jiro oo baalkii soo labakacleeyay ururada iyo iskuimaadkaasina uu hawsheeda leeyahay baalkiina uu nagu badan yahay dadku iyagoo taxadaraya oo iska ilaalinaya oo afka xidhay oo farxalka isticmaalaya inuu qof kastaaba ninka dhalinyarada ka ilaaliyo inuu waalidkii guryaha ugu keeno xanuunkaas waxa uu kaga ilaalin karaa waa inuu afka xidho qaamaha maydho is ilaaliyo la kala durko kuyugo qofba meel intuu istaago uu kaarka sugo kadibna isagoo wixiisuba ay islaaliye runtii uu qaato kaarka si bulshadiina aanu saameyn ugu yeelanin waalidkii iyo gurigiisina aanu saameyn ugu yeelanin badqabkiisina uu ka shaqeeyo taana waa soo jeedinaya guud ahaan bahda caafimaadka waxa leeyahay war hal laga hawl galo maadaama kaarqaasada jirto shaqada qaybta ugu weyn baad leedihiin dadka wacyigelinta siiya gudidii koonfurku way saaxato gudidaasi ma jirto wax shaqeynaya maahe qof kasto gobolada cidda joogta ee dhaqaatiirta ay caafimaad ka shaqeysa war dadkiina la jeclo yeesho kala shaqeeya leh aad iyo waa Imraan Xuseen Aadan wararka telefishanka caalamiga ee Ariel TV Boorama.